doorasho qof iyo coda iyo qabiil ma isqaadan kara dad badan ayaa qaba aragtida ah in meesha laga saaro wax qabiil la yiraahdo marba hadii la aadayo doorasho qof iyo coda ama qof walba ay codkiisa dhiibanayo 1950kii waxay qaramada midoobay ku margelisay gumeystihii Talyaaniga in 10 sano ee soo socda ay Soomaaliya gaarsiiso dawladnimo ama inay xor ka dhigtay yani inay ka dhamaato ayadoo inta u raacinaysa inay dadkeeda u tababarto nidaamka dawladnimada yani haday noqon lahayd doorasho haday noqon lahayd wax soo saar haday noqon lahayd ciidan yani inay ka dhigto dawlad dhameystiran ayadoo sidaasana 10 sano ay uga baxdo wadanka Talyaanigu wuu aqbalay waxaana la sameeyay xukuumad leeyahay xukuumadii wasaayada xukuumadii hadii la ku maayo xornimo gaarsiinta sidoo kale waxa jiray ururo iyo sidoo kale xisbiyo ka shaqeynayay kuwaas oo karkarinayay nidaamka xornimada okay hadaba 1955 waxa la soo gaaray mid kamid ah nidaamyadii la rabay in Soomaalida la baro waana nidaamka codaynta iyo sidoo kale qaabka ay isku dooran lahaayeen waxa la sameeyay ilaa 70 kursi oo la yiri 60 kamid ah waa in Soomaalidu ay soo doortaan 10 kamidna si gooni ah loo qoonday waana ku sheegi doona okay 60 kaas kursi waxa la dhigay ilaa 25 degmo oo ka tirsan koonfurta yani intii Talyaanigu ka arriminayay okay dadkiina waxa lagu wargeliyay inay gali doonaan doorasho laakiin su'aal imaad dad gumeysi ka soo baxay nidaam dawladnimo aan arkin 60% in ka badan ay yihiin reemiyi sidee looga dhaadhicinayaa doorasho yaas u sheegayo qofkay dooran lahaayeen iyo nidaamkii iyo systemkii wax ka dooran lahaayeen aragtiyo badan ayaa la isbarbar dhigay laakiin aragtida Soomaalidu way ka duwanaatay dhammaan aragtiyadii la keenay waxaana la waayay qaab Soomaalida la isugu xiro yani adduunku waxa la isugu xiraya urur qoomiyad hadii la ku imahay deegaan hebelow laakiin Soomaalidu dhammaan intaas oo dhan isugu xiran deegaan ku xiran ma jiro oo nin kasta waa reer guuray hadii la ku imahay ururo iyo xisbiyo ma jiro oo nidaamkuba waa nidaam hadda hor leh oo horay dawladnimo uma aysan jirin ururo isugu xiran qoomiyad ma jirto oo Soomaalida dhanba ay hal qoomiyada waa la isweydiiyay marka waxa la nidaam dadkan sidee isugu xirnaa sidee u tusnaa inay codkoodu xataa hal meel oo culeys u saaro marka laga reebo laba xisbi oo tusaale xisbigii SYL la oran jiray iyo xisbigii kale ee SDM ama Somali Democratic Movement la oran jiray labadaas xisbi ayaa sida caadiga waxay ahaayeen xisbiyada yani ugu xooga badan inta kale marka xisbiyo kale ma jirin oo awood leh oo hadii la way jireen laakiin hadana ma ahan kuwa shacab baxsan oo Soomaalidu ay aad u yaqaaneen tusaale waxa jira Somali National Union mid leeyahay oo kale ama SNU oo kale way jireen xisbiyo kale laakiin hadana ma ahan sida SYL oo kale iyo la iskugu maraacsanayn okay marka waxa la yiri waxa loo baahan yahay ugu yaraan 10 urur ama 10 xisbi oo ka qayb gasha sidee lagu keenaa xalkii ugu sokay muxuu noqday maadaama Soomaalidu isugu xireen community ahaan marka la yiraahdo qabiilka in la soo dhiso ururo iyo sidoo kale xisbiyo qabiila hadda ogaa waxaan joognaa 1955 oo Soomaaliya ay rajeynayso inay hesho xornimo dhameystiran yani dadku u hamuun qabaan inay hadii la ku xornimo helaan oo dadku israacsan yihiin oo niyadu isku furan tahay oo dadku is jecel yihiin xilligaas marayna haddana waxa laga maarmi waayay in nidaam qabiil ah wax lagu dhiso qabiiladii marka xilligaas waxa kamid ahaa qabiilka la yiraahdo Digil iyo Marifle hadda maanta reer koonfur galbeed u taqaanadika waa ku sheegi doona doorashadaas wax qadar waa weyn oo ka dhigay taariikhda ku qoran tahay okay waxa kamid ahaa qabiilka la yiraahdo Mareexaanka isna sidoo kale kuraasu soo baxday waxa kamid ahaa reer Afgooye ayuu moogtahay ma qabiil ma magaaladaas hadda ogtahay hadii kaleba magaalo qabiil ma yani reer hebel iyo wax iska ma jirto nidaam la yiraahdo reer Afgooye ah ka jira reer Afgooye hadda ma qasho waa isku hooy waan isku aabe ilaa hadda sidaas waay magaalada Afgooye la yiraahdo wax qabiil la yiraahdo iyo wax shuqul intaas wadanka jug iyo jag ka dhacisay wax shuqul ay ku leedahay lama arko qofkii tagaa reer Afgooye noqonaa reer Afgooye ku xeeriya ayagu ku dhaqanya ayagu ku waxya dadkaas dad diyaarsan waay halkan idinka salaamay reer Afgooye aad salaamay ayagu laftikooda waxay ku jireen ururadii ama urur ahaan ama xisbi ahaan u taagnaayeen oo hadii la ku maayo doorasho rabeen dhinacooda uga jireen adigu qabiilo badan oo Soomaaliyeed ayaa ku jira laakiin sida caadiga qabiilada kuraasta hela waxa kamid ah Digil iyo Marifle iyo sidoo kale qabiilka la yiraahdo Mareexaanka kaalinta koowaad waxa soo galay SYL oo helay 43 kursi oo u dhiganta 54.29 yani boqolkiiba 54 ayuu xagga marsaday kuraastii meesha la keenay sidoo kale tana 13 kursi waxa helay qabiilka la yiraahdo Digil iyo Marifle qabiil ma qoomiyad dhan dhigi karna laakiin aduu qabiil ah dhahayna maadaama Soomaaliya ayadu dhan ba qoomiyad dhahayno marka qabiilkaas ayaa wuxuu helay 13 kursi oo kamid ah Digil iyo Marifle xisbi Digil iyo Marifle oran jiray 13 kursi oo helay oo u dhiganta 26 boqolkiiba kuraastii hadda aragtid meesha ragaas waxay qaataan nidaamka hadda saamay qaybsiga 4.5 ka rubac ay qaataan afar meelood meel waa sidii had markaasna ruucooda qaateen boqolkiiba 26 qaateen ruucooda xaq u la jeesteen okay qabiilada kale waxa kamid ah Mareexaanka oo asna hal kursi helay oo u dhiganta boqolkiiba 1.85 codayntii la sameeyay okay ilaa 11,000 oo qof ah codaysay saa filayo marka nidaamkaas wuxuu noqday 60 kursi oo Soomaalidu oo nidaam qabiil lagu soo doortay oo xisbiyo qabiil ahaayeen oo 14 kursi oo kamid la yaqaano la yiraahdo nidaam qabiil ku imaadeen ayaa baarlamaankii ugu horeeyay ama nooc kasta
kasta ha noqdo ama gumaystaha hoostaga ama eblow adu waxarti u yeeray ayaa Soomaaliya ay yeelatay yani 14 kursi oo kamid ah nidaam qabiil lagu soo xulay ogow tusaya Soomaalida meesha uu qabiilku wali soo tagayn okay doorashooyinkii ka dambeeyay heerba heeray mareen ilaa doorasho lixdankii ilaa 64 ilaa 62 doorashooyin la yaqaano oo sharaf iyo karaamo leh oo kaalinta koowaad Afrika galay ay ka qabsoomaan laakiin doorashada noocaas waxay ku soo bilaabatay reer Hebelow kaalaya ka qayb gala doorashada waxayna gaartay xilli la isku dilo oo hadii la ku imaan nidaam doorasho kan ugu sareeya Afrika ka dhacay Soomaaliya qaado maanta waxaan taaganahay 2025 oo u dhiganta 1955 xaqiiqatan waay marka afiirisi Soomaalidu nidaamka isku xirnaantoodu xisbi maaha saaxiibtinimo kale ma jirto qoomiyad ma jirto deegaan ma jirto nidaamka kaliya amaanta Soomaalidu isugu xiran yihiin waa nidaamka la yiraahdo qabiilka mar kalena waxa ogaanaysa in islaga maarmaan u noqon doonin in nidaam doorasho qof iyo cod oo qabiil ku dhisan la soo dhisi doono waayo si loo gaaro doorasho qof iyo cod oo sida dunida u dhacday oo kaleeto waa in meesha laga wareejiyo odayaasha ragga koofiyahan wata waa in meesha laga wareejiyaa koofidaas waa in la qaadaa meesha la geeyaa si odayaasha looga takhalusana waa in wali ayadoo la ilaalinayo nidaamka saami qaybsiga ee 4.5 maadaama dastuurka wali qabiil yahay waa in odayaasha meesha laga wareejiyaa hadaba su'aashu waxa waaye sidee odayaashan loo wareejinaya sida ogsoonahay xildhibaanka waxa soo doorta 3 oday iyo ergadood waa fahmaysaamaha ergadu maalinba meel joogta 101 51 20 10 maalinba meel joogta 3 oday adu heerba 30 iyo Hebelow 30 adu maalinba meel joogta maanta marka heerka ay tagi karto waxa weeye in laga takhaluso waxa la yiraahdo ergo iyo sidoo kale oday oo maxaa la sameeynaya xildhibaanku jufada uu matalo in ayagu ay si qof iyo cod ugu codeeyaan tusaale deegaanada ay reerkiisu degan yihiin in loo dhigo sanduuqiisa oo wiilka 15 jirka ah iyo 95 jirka qabiilkaas ka soo jeeda mid walba oo ugu shubo yani yaa tartamaya reer Hebel oo reer Hebel xirsi kursiga reer Hebel yaa u tartamaya intaas yani maxaa waaye nidaamka saami qaybsiga waa meeshiisi oo reer Hebel kursigoodii 4 kursi hadii lahaayeen 4 kursi soo helayaan laakiin jufooyinkoodii hoose ayaa waxay sameynayaan doorasho waxayna soo saarayaan xildhibaan xalaala raas kuleeya yani xildhibaan ay ku qada qanacsiin reerka oo dhan sababtoo ayaga u socday meel awal 4 oday 3 oday dooro jirtay hadda maxaa la sameeyay in la yiraahdo war qabiilka dhan ha codeey ama majority ama inta ugu badan qabiilka ha codeey saas darteedna xildhibaanka oo ku soo baxo qof iyo cod bari marka maxay noqonaysaa maanta jufadiisa u soo codeysay bari in qabiilkiisa oo dhan u soo codeeyo tusaale reerka Hebel oo ka soo jeedo oo dhan inuu haddana marka la codka u doonto bari kale maxay noqon doontaa in Soomaaliya si guud ugu doonto waana nidaamka ugu sahlan ee loo mari karo waxa laga yaabaa inay qaadato 10 ilaa 15 sano laakiin waa nidaamka ugu sahlan oo tartiib looga takhalusi karo maanta hadii la yiraahdo laakiin odayaal dhaqameed la diriraya hadii la ku imaayo xildhibaanka beelaha la diriraya saami qaybsiga waa la diriraya oo hal mar inta ka guurno nidaamkan saami qaybsiga 4.5 ka hal mar inta ka guurno hal mar waxa taginaa doorasho qof iyo cod iyo nidaam la yiraahdo Soomaaliland weyn oo maleymaanayso tagalayso waxaana yeelan doontaa cadaawad weyn oo waliba dhibaato leh waayo wali way joogan saamileydii iyo dadkii danaha ugu jireen dadkii shalay maslaxadan dartood loo sameeyaa wali jooga arnool dadkii yani in 4.5 nidaamka loo qaybiyo dadkii kalifay Soomaalidu kalifay wali way noolyihiin walina waa u taagayeen in wali difaacdaan soo marka waa in si maslaxaysan waxaan loo baabiyaa oo loo tirtira marka dadka dhaxaya qabiila loo aaday doorashadii Hebelow maanta Soomaalidu nidaamka isugu xiran waa nidaamka qabiilka loogana maarmi ma 20 sano la soo dhaafay dawladda jirtana waa dawladda qabiil ku dhisan waana muhiim waliba marka hadii adiga buufiskaaga jiray qabiilka iyo sidoo kale doorashada isma qaadan karaan araa ku dhahaya hore loo sameeyay tijaabada 1955 waana lagu guuleystay waxa laga yaabaa inay ka iloobay 10 kursi oo ka soo hartay 60 kursi ee Soomaalidu ay qaybsatay 10 waxa lahaa dadka loo yaqaanay dijineera adiga dadka adariska ama shisheeyaha dadka la yiraahdo tusaale 4 kursi Talyaaniga lahaa 4na Carabti wadanka joogta lahaa sidoo kale hal kursi Hindidii wadanka joogtay ayaduna hal kursi Pakistaaniyiinta lahaa saas darteed ayaa 10 qof oo shisheeyaha xilligaas ay u fariisteen baarlamaanka Soomaaliya taariikhda ku jirta marka Soomaalidu waxay dhahaan maaradaada mas'ale ayaa loogu seexdaa si aan u gaarno heerka ugu sareeya ama heerka ugu fiican ee doorasho waa inaan marnaa heerarka ugu xun ee doorashada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.